Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. holac Somali TV subscribe please. Aniga waa nacbahay hooyadii aabay inaad TV-ga la daawado sababtoo ah saacadu markay ku beegan tahay 1 saac oo habeenimo waxay bilaabayaan kursiga inay ku fariistaan walaalkay yarna uu ku fadhiyay gabdhaha walaalahayna dhinacaan ay fadhiyaan wiilka walaalkay iga weyn kursigaasi siiyaan anigana meel ima siiyaan fariista xataa seexdo fadhiga iska seexda mararka qaarkiis aabay soo gaday TV-gan Skyward 32 inchiga ah dabeecadoodu way isbedeshay filmo qatar ma fiirsanayaan wax qatar ma fiirsanayaan TV-go blanki daawanayaan macnaha oo waxba laga dhex arkeenin aniga marka waxa isiray sheedaamo maan la nool waxaan mise rooxama ku dhex jiro TV wax laga arkeen si u daawanayaan awood bil aniga dabeecadooda uma bogin sababtoo iska qoqosla ha markii dambana way qaylinayaan aniga waa la yaab familkan anigana inta cabsada go'o soo qaata isku daday waa qayladooda oo dul qaadan waayay habeenkaas oo dhan way qaylinayeen subax markii la gaaray waxay bilaabeen inay qufacaan ay dhahaan aniga yab war familkan iyo maxaa ka qaldan arintooda lama fahmi karo aabayna habeenkii dambe wuxuu igu yiri naamandacadii TV-ga ma nala daawatid anigana waxaan ku yiri mawaalintiin TV wax laga dhex arkeen saa u fiirsada okay sidaas hadii ta iga bax qabaadkaada cuna alaabtaadana aruso anigana waxa isir gabar yaraatay xaje aadaysa magacayga marka waxa la yiraahdaa farxiyo inta badan marka waa la yaabaa familkan way habeen walbo waxay fiirsadaan wax jaalo ah wax madow marka waxa isiray reebaadiyaal miya kuwan talow isla marka habeenayba waxay daawanayeen isla muuqaalkooda waxay la noqotay marka TV-ga inuu ka duubayo muuqaal yab itacajab aniga xataa inta badan ma jeclay inaan la fariisto laakiin waxa isiraada xaaladooda ka warhaay waxay sameynayaan marmar waa iskala qoslaa laakiin ma u jeclayba agtooda inay imaado marka arinta ugu la yaabka badan waxay tahay waxa arkay qolasheedama oo ka soo galay dhinaca dabka qaar albaabkii ka soo galeen waxay bilaabeen marka gabar kale oo timo blue leh waxay bilaabeen marka familkeyga inay cunaan timay ka cunayeen qaar dhoontay ka cunayeen TV-gana ka fiirsanay baalkana kor bini'aadan uga eeyahay hoosna seeno ku leeyahay ayakana ma dareemayaan anigana waxaan dhan waa u jeedaa yab itacajab ma dhahdo habeenka wixii ka dambeeyay aniga go'aan waxaan ku gaaray familkan inaan ka dhaxbaxo alaabteeda isku aadista awowgii aado sababtoo ah waxa arkayo waa rumaysan waaye inta badan marka habeenkii xataa ma jecli kaliya inaan seexdo gabadho kale oo saaxiibtii ah u wacda ayadana la jiiftaa waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabay like saara holac Somali TV subscribe dhehmaad daadaydu markii ahayd 16 sano waxaan ku nooleen magaalo aad u yar waxaana nagu aadanaa guri aad u weyn guri xataa ma dhigi karno dabaq waayo dhowr isbuuc wax ku noolaa ma lahan maalintii dambe waxaan go'aansaday ani asxaabteyda bal gurigaas gudaha inaan baarno waxa ku jiro asxaabteyda dhanna way ogolaadeen inay soo raacaan habeenkaas habeen ay saacadu tahay 1 saac oo habeenimo waan soo dhowmanay gurigan soo galnay tooshashna waa wadanay gurigan waxay la tahay inuu aad u gubtay way wax ku noolaa ma lahan isbuuci u dambeeyay meel walba sawirada wax walba way gubteen qadiim u ahaa guriga waxaan bilownay jaraanjarada guriga dabiida cali inaan baarno xitaa meesha stoorka cuntada la dhiganayay anigana waxaa watay toosh fulay xarweyn ba ahaa waxa ay agmaray waxa isir waxaas mixiin waxaan isiray waxaas waa rah meesha marmarayay aad baan u baqanayay markii dambe waxaan imaaday kor jaraanjarada dabaqa labaad second floor albaabkan furay waxaaba arkay meesha bombala fadhiyo aniga yab waan naxnay dhamaanteen bombalaan meesha muxuu ka qabanaa maamula miya waan soo wada baxnaa albaabkina u soo xirnay waxaan aadnay dabaqa saddexaad sidaan wax u barbaaraynay cadeema xitaa waa helnay qofa wuxuuna yiri kor fiiri markaas waxa aragnay eray meesha ku qoran get out baxa markaas qosol bilown wax yar kadib saaxiibadeena saaxiibo kamid oo gabar la yiraahdo Anisa waxay tiri
waryaada maandhocyaashaatiin cune waxaa arka wax meelaan marmaraay markaasaa bilaaba inaan toosh ku baarbaaro wixii waana arki waaye waana soo baxnay dabaqa labaad markaan imaanay si aan u baarno haddana waxaa aragnay boombaliyo meesha ka maqan yaab boombalaa ma hogaamiyuu ahaa mise sixiruu ahaa dhammaantiin waxaan go'aansaday sida ugu dhaqsiyaa badan meeshan inaan ka baxno waan soo wada baxnay dhammaantiin waxaa jiro albaab ku aadan gurigan oo jikada u dhow oo gurigan dhaqso looga baxo waan imaanay markaa jikada imaanay waxaaba aragnaba boombaliyo meesha noo fadhiyo maandhooc dhala noqday oo ishina laga bixiyey yaab waxaa sameynan waa garan weyn boombalaha wuxuu ku fadhiyey kursiga qadada aadowna noo fiirinayay koraa fiiri waxaa arkay garawt ka baxa meeshan sida ugu dhaqsiyaa badan aadaan u cabsanayna dhammaanteen waxaan ahayn dad oo fulayaal ah markaasaa waxaa isireen waa inaad gurigan ka baxnaa sida ugu dhaqsiya war soo carara markaasaa nina waddada dhanba iga xiran nin weyn waayaa waxaa isireen ninkan yuu ahaa aad buu ii fiirinaya mindi weynna wuu wato waa idin qalaya dhammaantiin ninkan wuxuu jiray 40 sano sidoo kale waa ka aamusneen wuxuu samayn doona bal aan sugeynay inuuna diluu rabay uu noo qaslay ha yaa bay tacajabeen nagu noqotay uu noo soo dhawaanayay gabadha saaxiibteeda waxay heshay qori markaasay tiri war ii soo dhowo qorigu dhalay war warkaasaay waxa igu samee ninkaana wuu aamusnaa wuxuu sameeyo garan waa wuu aamusay dhagaxa meesha ku aadanaa dhagaxii uu ka leexiyey meeshuu galay ma rumaysan karno ninkan meeluu ku noolaa yaab waan soo orodnay qof walbana nafsadiisa si u badbaadiyo u soo ordaayey saa u soo cararaynay gadaalaa fiiriya marka waxaaba arkaba ninkii meesha galaya dhagaxa hoostiisa oo isoo fiirinaya daaqada taagan waryahay maandhocyo see tahay boombalahana asagaa lahaa yaab waa yaabanaa wala aadowna u qosla dhammaanteen aadaa u daalnay wadnahana zaa'iduu noo qaraacayay waxaan islahaa mariyaa ku jirtaa mise waa dhab maalintaa waxay ka dambeeyey guri dhan maana weerarin xitaa maana baarin waayo waxay iga raacaan la socdaa asxaabay layga saara waana ku mahadsantihiin daawashadiina God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know